lixdii bishii Juulaay ee sanadkii 1967 madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu jagada ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya u magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo ka soo jeeday gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Cigaal in laga dhigay ra'iisul wasaaraha dalku waxay dheelitir ka dhigtay labadii dhinac ee Jamhuuriyadda ku midoobay. Xaashiyaha sooyaalka siyaasadda Soomaaliya dadka rogragaana waxay isla qirsan yihiin in madaxweyne Sharmaake uu qaaday dhaba ku dayasho mudan. Horaantii bishii Juulaay ee isla sanadka Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal wuxuu soo dhisay golo wasiiro oo ka kooban 17 wasaaradood. Shaariciyada iyo goobaha lagu shaaheeyay Muqdisho iyo golayaasha siyaasadda ee dalku waayaha waxa ku batay xanshashaqa iyo weydiinta ah baarlamaanku inuu ansixin doono wasiirada uu soo xushay Masar Cigaal. laanta afka Soomaaliga ee BBC-du waxa ay 1967 iyadoo aan weli la ansixin xukuumadda uu soo dhisay Masar Cigaal ay la yeelatay waraysi hadal ah. hadalka waraysiga ahna waxa ay ku weydiisay su'aalo ku aadan siyaasadda dalka uu ku hogaamin doono iyo in baarlamaanku uu ansixin doono xukuumaddiisa. hadalkii waraysiga ahaa ee Cismaan Badawi oo BBC-da ka tirsanaa uu la yeeshay Masar Cigaal wuxuu u dhacay sidaas. ra'iisul wasaare dawladdan cusub ee aad samaysay waxa ugu weyn in wasaaradii tiradeedii ay korodhay waqti dhaqaalihiina uu circiraayo miisaaniyadeennuna sanad kasta ay isdhinto ma kula tahay taasi danta waddanka inay wax tarayso? waxay ila tahay danta waddanka inay wax tarayso waayo sababtu waxay tahay waddanka sideenan dhaqaalihiisu xun yahay ama miisaaniyadiisa cajsi ku jiro ee aan iskeenin laba siyood baa wax lagaga qabtaa. mid waxa weeye in dalka khidamaadkii dhaxdiisa laga qaban jiray in la dhimo oo dhakhtarada la yareeyo, bilayska la dhimo, armiga la dhimo, dawladda dadka u shaqeeya la dhimo oo sida miisaaniyadii markaa naaqisinayo la isku gaarsiiyo. sidaas waxa weeye si aan markaa dhaqaale ku kordhaynin wixii jiray unba wax la dhimay ayaa wax laga dhimayaa wax la kordhinayaa meeshii ma ay jiraan. waxay ila tahay inay tahay haddii aan Soomaaliya kelmad ugu baaro isnuugu dhaqaalihii waddanka isagu isnuugayo oo kale weeye. sida kale ee caalamku wax kaga qabto aniguna aan sidii kaga dayo waxa weeye in dalka wixii ka soo baxay la kordhiyo oo dadkii sidii markaa waxay lagu kordhinayeen ay noqoto in dadkii shaqaalihii la ballaariyo oo dhul wax ka soo baxayaan markii la helo inta dadka shaqeeyo loo sameeyo wax ka soo baxaan. Mesela meeshii haddii ay lagu khasiro malyan shilin ay 4 malyan soo saarto markaa 3 malyan oo faa'iido ayaa meeshii ka soo baxay. marka aniga waxay la tahay waxa aan kordhiyay wax waddanka faa'iido u keenayo taqadum keenayo inay yihiin. ra'iisul wasaare ma kula tahay dawladdan aad samaysay inay heli doonto sawdkii kalsoonaanta? arrinkani arrin baarlamaan ku shaqo leeyahay weeye kalsoonida maxay ahayd dawladda heliinkeeda iyo waayisteedu. marka gacan rag kale wax ku jira waxay la tahay casnimo yar baa ku jirta haddii ra'iisul oo la yiraahdo waa helaya. waxaan silahay anigu si inaan helayaa baan qabaa sababta aan u qabaana waxay tahay de waxaan ahay neeftihin oo kale hore waxa la eega arkay xumaanhiina ma ay jiro dadka in badan oo guri ii qabtaana way jirtaa. marka in raggii baarlamaanka yidhaahaan bal ninkan aan eegno wuxuu la soo baxo ayaa filanaya. markaa sidaas ay ila tahay inaan fiqi ku helay. ra'iisul wasaare waddanka intiisa badan waxa imika aad looga dhawaaqaa khiyaanada iyo qarabakiilka iyo xukmi xumida xafiisyada dawladdaadu ma damacsan tahay waxyaalahaas xunxun inay la dagaalanto oo ay baabi'iso? maanta warqad dheer baan u qaybiyey dadka dawladda u shaqeeya waxaan kala hadlayay sidii bal iyaga dhaqaalahoodana loo hagaajinayay, sharafkoodana loo dhowraayay, iyana dalkii shaqadiisii ay ugu dadaalayeen ee dadkii u simayeen ee horumarkii dalka ay sahmigan uga qaadanayeen. marka wax hore anigu aan ka daba tegay inuu jiri jiray anigu waxaan ku qalqaal jiray haatan haddii aan halkii qabtay in labadii geesoodba raggii isna wax iyagiina la dhaqaaleeyo isna wax dhaqaaleeyaan oo Soomaali la simo oo dalkii iyo dadkiiba loo shaqeeyo oo loo noqdo maxay ahaydee loogu shaqeeyo
si xilkasa oo adduunkii dalkana maxay hayday laga dadaalo inuu wixii dalka soo galaa dalka soo gaaraan inay faradhaxdu ka dusin anigu arrin ka dadaalaya weeye hore waxbaa loo sheegi jiray waxaan leeyahay raggiina waan kala taliyay aniguna waa iska waaniyay waana in lagu shaqeeyo waxa la tirona hadii jireen la tiro hadii aanay jirin in laga dadaalo aan dib aan u bixin ayaan ku dadaalayna ugu dambeystii ra'iisul wasaare maxay noqon doontaa siyaasadda dibadda ee dawladda khusuusan maxay noqon doontaa ta ku saabsan dalalka Soomaalida ee maqan siyaasadda khaarijiga ee dalkan waxay noqonaysaa sidii aan ragga radio Soomaali maalin dhaweed ay weydiiyeen ugu jawaabay ama dastuurkeennaba ku qoran ee ku cad siyaasad dhaxdhaxayna ay noqon doontaa laakiin iyadoo dhaxdhaxayntaas ay haddana noqon doontaa siyaasad si cad u dhisan oo dalkan wixii xumaan ugu maqanna xumaanta ku og wixii walaalnimo wanaag ugu maqanna wanaagaayo walaalnimada ku og oo maxay ku garab taagan dalkii maqnaa arrinkiisii waxaan leenahay dastuurkeenu sida uu qorayo wuxuu leeyahay dalkii Soomaaliyeed ee maqnaa in la doonaa weeye sifa silmiya oo nabadgelyo leh in lagu doonaa weeye ilaa maanta dawladda Soomaaliyeed 7 sanadood ay dhisnayd nabadgelyadaas ay daba haysay oo ay ku doonaysay dalkii Soomaaliyeed bal maanta annagu waxaan isku daynaa inaan annaga oo tii wadayna oo raadkii uun haynayna waxaan isku daynaa bal sifa diblomaasiya in dadkan aynu maanta maxay haydeenahay jaarkan nahay hareeraha inaga xiga in haddii walaalnimo wax laga heli karo iyo wanaag wax laga qaban karo in laga doono ilaa intii laga quusanayo mahadsanid ra'iisul wasaare waxaad maqlayseen hadalkii waraysiga ahaa ee Cismaan Badawi Juulaay 76kii uu la yeeshay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu dhaliilo xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxaa ka mid ah siyaasadii ay u adeegsatay ama diblomaasiyadii ay ka ciyaartay dhulka NFD loo yaqaano oo maanta ka tirsan Kenya xilliyada Soomaalidu meel ay joogtaba waxay ku jirtay halgan afka oo ay ku doonayaan ama ay ku rabayaan dhulka NFD in lagu soo diro Jamhuuriyadda Soomaaliya haatan dhageystayaal waxaanu idin ciyaari doonaa hees hobalada Soomaaliyeed ay ku cabirayaan dareenkooda ku aadan dhulka NFD oo la qaaday 60maadkii adduunka dadka loo abuuray way soo yihiin NFD ayaa leh ummada adduunka dadka loo abuuray way soo yihiin NFD ayaa leh ilaha ku siiyo NFD ayaa leh ilaha ku siiyo NFD ayaa leh أدونسن ماي عنك أكتوغنو أرقما عنايا كايلا لناينو لا أدونسن ماي لا أدونسن ماي عنك أكتوغنو أرقما عنايا كايلا لناينو لا أدونسن ماي لا أدونك دادك الله أبوري ayaa leh wada adduunka dadka loo abuuray